بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديا شقيمة هاي قايرة وميرو بندق داونيسان هالكن وايلي سي في وعلى بندق براتين إن ينقصوا قد بين برنامجيو حيسلا ونكجا علينا الدنيا الصومالي دا يجيز كأفريقيا. برنامج كده ما أنت يقول بدأ يدنكوا هنا وحكم المسلمين تو مالك صدحات صومن شيخ صقل أو فضيق بشا بركيسان رمضان كهالي عبد الرحمن الشيخ مادي وبرشادة الصومالية وقاعدين يباق الدري سبحات نجا وإسكع عسلي حلالتي وكهي EBRDF يكعدون كقصة وقاعدين وسيلة بالحاد سدي إنتا وورك مدحديسي حدنا إسقي أوفيسن قلب كنا كوبا ضحك سوق هذا إن عالم الإسلام أيام مالك صدحات صومن بش رمضان وبش ماركتي أجرك بش ماركتي عبادة بشي ماركتي قرآن كسودي بشنا وقابل آدي فضيو بدن يكون جيران صوبته وحكو جرا هبينكي ليلة القدر كا هبين كا صوبيغا كون هبين قفكي هبين كا إلهي فرصة سيانا runtii wix cimrigiisii oo dhan maaragtay loo dambi dhaafayo oo maaragtay 1000 leylo yani kun habeen u dhigmaya barnaamijka fadliga ramadaanka waxa maaragtay noo soo gudbinaya barnaamij kooban oo kaga hadlayo Sheikh Sagal ee waakanay nala daawada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل أمورنا اللهم افتح علينا فتوح العارفين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلهي سبحانه وتعالى بشهر رمضان وحوكا شيكيي قرآن كالحديثة إيضا رمضان كالحديثة قرآن كالسعود جيي أيها هذا آيات كالدوان بإلهي كالحديث سبحانه وتعالى marka bishii ramadaan baa maanta laba inoo ah khayrkeeda iyo fadligeeda Allah ina siiya mawduuceenu maanta wuxuu ku saabsan yahay fadliga soonka guud ahaan iyo gaar ahaan bisha ramadaan ayaynu ka hadlaynaa Allah subxaanahu wa ta'ala uu inoo nicmeeyey oo wuxuu inoo doortay bilaha ilaahay ka mid ah ayuu inoo doortay si aynu wax alla wixii dembi aan soo kasbannay aan oga maydhanno si aynu camal fara badan oo la nimaadno oo aynu dib isu cusboonaysiinno iyo abaabul ruuxa naftiisa uu dib u abaabulo aynu u samayno wax walbo marka camal oo la timaado khayrka uu leeyahay wuu kooban yahay markii la barbar dhigo soonka oo soonka khayrkiisa waxa kooban oo la garan karo bani aadamba sawiran karo ma aha sidaa awgeed buu Abu Hurayra radiyallahu anhu wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ilaahay wuxuu yiri buuri Abu Hurayra wuxuu leeyahay rasuulka yiri buuri wuxuuna rasuulku leeyahay ilaahay wuxuu yiri kullu amal ibn aadam lahu illa as-sawm فإنه لي وأنا أجزي به عمل والبا وروح بني آدم كي ولي مادو وعمل يسوي اسكاليهي وأحددا صان كموين أنيغا أيا إيسوغنادي أنيغا أيانا كأبال مرن هيبوري وأنا أجزي به أيوري كل عمل ابن آدم عمل والبا ابن آدم كأو سمايو ama qalbiga ha ka sameeyo xubnaha ka sameeyo lahu isaga iskala buuri illa soomka mooyeen soonka fa innahu soonku li anigu ii sugnaaday buuri wa ana ajzi bihi aniguna waan u abaalgudayaa ruuxa soonka la yimid camalkiisii iyo abaalgudkiisii ilaahay baa ballan qaaday subxaanahu wa ta'ala waa xadiis qudsi والصيام صانكنا جنة قاشان ويه
adduunka intaad joogtana xumaantuu kaa ilaalin aakharana wuxuu kaa ilaalinaya naartuu kaa ilaalinhayaa soonku wa idaa kaana yowmu sawmi axadukum hadduu ruux idinka idinka midii maalinkaa uu sooman yahay falaa yarfuth walaa yasqab hadalla cantarabaqash ah iyo wax aan faa'iido u lahayn iyo wax dembi uu kala kulmaayo midna yuuna ku hadlin biyu ruuxaasi fa in saabahu axadun aw qaatalahu hadduu ruux ku caraatama isaga ama uu caayaba ama uu laba dagaalo falyaqul ini imra'un saa'imun ha yidhaahda buuhi anigu ruux sooman baan ahay saasuu kaga badbaadahayaa ruuxaas waa haddii uu si kale uga baxsan waayo ee intuu ka carari karo iska ilaalin karo ha iska ilaaliyo waaladii nafsu muxammadin biyadihi lakhaluufu fami saa'imi adyabu cinda allaahi min riixi lmiski buuhi ilaahay baan ku dhaartay buu ihi ruuxa idinkayna ka mid aha galabtii markuu joogo hadduu sooman yahay afkiisu waxaa ka soo bixi ur aan uuna jeclaysanaynin dad kale ayna jeclaysanaynin waxbaa ka urahaya afkiisa qarmuun baa ka urahaya oo sidii caadigahayd maa iyo xaaladiisii dabiicigeed taas wuxuu yidhi markaa ruuxaas sooman afkiisa qarmuunka ka soo baxaya maalinka qiyaamo wahalka miskiga la yidhaahdo cadirada midka u udgoon wuu kasii udgoon yahay buuhi yacni wax kastoo udgoon buu ka udgoon yahay cadirka wakhtigaa jiray uu nabigu calayhi salaatu salaam uu la hadlay dadkiisa waxay ahayd miski iyo cambar iyo wax la yidhahday ahaayeen oo aan wax kale lagu darin oo sidooda ah oo ruuxu markuu ismariyo wiig kaamila kana muuqanaya kana soo gufaacaya udgoonkiisu ka soo gufaacayo sidaa awgeed baa markii ruuxa dumarkii intuu ismariyo bannaanka u bax maadaama uu maalinka o dhanba ka soo udgahayo ilaa berri ilaa maalin walba kasii udgahayo loo diidahayey cadiradan hadda la ismariyana waxa weye marka saa la isu mariyo geedkaaba adoon gaadhin ayay dabaysha raacayaan marka cadirkii noocaaska ama miskiga ha noqdo ama cambar ha noqdo ama kii noocuu dooniba ha noqdo kuwa yooga faraha badan la sheego intuba waxaa ka udgoonaan badnaan maalinka qiyaamo afkaagan riixda ka soo baxaysa ay gaajadu keentay ilaa marka calooshu marato waxaa ka soo bixi wax aan udgoonayn waxaan caadi ahayn oo dabiici ahayn ayaa ka soo baxaya marka xadiidka kale intaynaan gaarin ba xadiidkana wuxuu inoo sheegayaa macaanida ku jirta ayaa waxay ka kooban tahay kow soonka faa'iidadu leeyahay inay tahay mid ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ballan qaaday inuu kaa abaalmariyo acmaasha kaloo dhanbana waa laga abaalmarinhayaa laakiin isuma dhigmahayaan camal walba ood la timaado waxaa lagu dhufanayaa 10 inta ugu yar tahay mararka qaarkoodna 100 baa lagu dhufan mararka qaarkoodna waxaa lagu dhufanayaa 700 oo goor baa lagu dhufanaya macnaa camalkii waa kuu lalaamayaa waa kuu kordhahayaa aduu hal salaad bad la timid ilaahayna waxaa laga inuu kaaga dhigo 700 oo salaadood fadligood inuu kaaga dhigo laakiin soonka isaga wax tiro ah oo lagu xadidi karo ma jirto tirada lagu xadidi lahaa ee la sheegi lahaa waa tiro maskaxdeenna ka badan sidaa awgeed buu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wa ana ujzii bihi fa innahu lii aniga unbuu ii sugan yahay wa ana ujzii bihi anu unbaana ka abaalmarinayaa ruuxiisa ruuxaas soomay anu unbaa ka abaalmarinaya sidaasuu ilaahay subxaana wa tacaala ballan qaaday waa xadiid qudsi faa'iidada kale laga helay waxaa weeye fa innahu junna soonku waa gaashaan wuxuu gaashaan ka yahay adduunka ruuxa sooma haddii salaaddii ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay inna asalaata tanhaa cani ilfaxshaa'i haddaad xumaan iska keri weydo si dhaba u tuko iyada salaadaasaa sabab u noqonaysa xumaanta inay kaa dheerayso salaadaasaa sabab u noqonaysa soon oo haddii aad soonto iyada ayaa gaashaan kuu noqonaysa soonkii baa gaashaan kuu noqonaya fa innahu soonku junnatun gaashaan weeye adduunyada wuxuu kaa dheeraynayaa xumaanto dhan buu kaa dheeraynayaa
waayo nabigu wuxuu leeyahay xadiid kale salawaatu ullahi wasalaamu calayh ina ashaydaana yajri bibni aadam majra dami shaydaanku jidhkaaga meelaha dhiiggu maro oo dhan buu marayaa markaa jidhkaaga maadaama shaydaanku meeluhu dhiiggu marahayo waa xididadii u dhex soconayo xididada waxaa cidhiidhi gelin karaa inaad gaajooto ood waxoogaa isdhuubto aad qof dhuuban oo tabar daran taasaa keenaysa ood la dagaasho waxyaabaha waafiga kaa dhigay ku ballaarinaya aada la dagaasho laakiin haddaad cabbitaanka iyo cunitaanka badiso ood raalli geliso dhinacaaga jismiga aada raalli geliso waxaad beer daraysay dhankaagi kale ruuxiga ah ayaad beer daraysay marka waxaa kugu badan maadiyaadka hurdo badan baad u baahanaysaa waxaad u baahanaysaa laqwiyaad fara badan iyo waxyaabo kale oo isku maaweeliso walacalla inaad xumaan u tallowdana waaba laga yaabaa wuxuu ku leeyahay markaa soonku haddaba wuxuu cidhiidhyahayaa xididadaasuu cidhiidhyahayaa shayddaanku meel uu kaa dhex maro ma helayo waxaa kuu fududaan markaas daacadii soon iyo salaad iyo wixii lamid ah yaa kuu fududaan waadna macaansan waadna dhadhansanaysaa waxaa kugu cuslaan oo buur la fuulaya kaala daraanaysaa macaasidii shaydaankii baa ilaa kaa fogaaday haddaba soonkii laba xaalu wataayoo marka qaar ahaan bisha ramadaan soonkii oo junno ah oo xumaantii kaa ilaalinaya bisha ramadaan oo shayaadiintii intii la xidhxidhay kulligood silsilad lagu xidho wax isdhaqaajin karaaba uuna jirin markaa labadaa faa'iido oy bishani leedahay ayaad helaysaa markii aad soontood u dhegraariciso weeyaan haddaba waxaa laga yaabaa asbaab baa iman kartaa uu shaydaanku xaggeeda kaa soo geli karo inaad ku dhacdo laqwi ama aad ku dhacdo xaaraan ku dhacdo xubnahaaga kale ee muuqdoo dhan baa shaqaynaya oo mid walba waa manaafid waa guri markaad ku dhex jirto meesha dibadda ka arkeed waa dadiishadii weeye marka indhahaagii dhagahaagii iyo wixii lamid ahaa o dhan iyo afkii marka haddii ruux uu si uun isugu dhacdaan oo ruuxaasi ku aflagaadeeyo ku caayo ama kugu caraatamo adigu ka gaabso xusuuso inaad sooman tahay xusuuso inuu ilaahay kaa ilaalin oo soonku junno yahay xusuuso inaad tahay qof maanta la ilaalinhayo haddaad aada iska fogeynin waardiyaha aada iska kala dirin marka maxaad odhanaysaa innii saa'im oo laba macno laho innii saa'im inaad naftaada aad tidhaahdo ha hadlin ilaa waad sooman tahay ha u jawaabin ruuxan waad sooman tahay ka aamus ama maqashiyo si uu isaga qudhusi kaaga istaago war waan soomanahay marka haddaba u ogaado inaad sooman tahay inuu kaa xishoodo oo kaa aamuso ayaa laga yaaba waa haddii uu si kale kaaga aamusi waayo inaad kaba aamusto soonka aad leeda waan soomanahayna kaama hays tustus ilaahay baad u sooman tahay laakiin ulajeedadaadu waxaa weeye insaankan kugu xadgudbahaya ee af iyo adinba dhib kuu geysanaya inaad uu kaa istaago taan baad doonaysaa ulajeedo kaloo leedahay ma jirto marka waxaad odhanaysaa innii saa'im ayaa odhanaysaa qaybtadma xadiidku wuxuu noo sheegayaa oo faa'iida yadan ahaa inay kuu markhaati kici doonto riixda afkaaga ka soo baxaysa iyo baahida ku haysa dhammaantood maalinka qiyaamayaha kuu markhaati kici waxyaaba badan aahaarta cibaadada ilaaliya yaa la yidhi leanna markuu ruuxu geeriyoodo hadduu ku geeriyoodo isagoo halgan xaqa ku jira uu ku geeriyoodo waxaa la yidhi qofkaas jihaad ku dhintay ama shahiidka ah ha dhaqina ayaa la yidhi maryihii uu dhiigga ku watay iyo dhiiggiisi iyo sidiisoo la dhaqayaa yaa la aasayaa maalinka qiyaama wuxuu la soo baxayaa dhiiggaa osoo ka udgoon miskigii iyo cambarkii ka udgoon buu soo baxayaa oo wada nuur ah ayuu soo baxayaa qofkii xajiyahaya nabigu calayhi salaatu salaam wuxuu yihi madaxa ha u dadina sidiisa u aasa maalinka qiyaama isagoo labayka allaahuma labayka low soo bixi doonaaye sidaa u daaya buuri sidaase culamada qaar waxay yidhaahdaan markaad weysaysato inaad iska tirtirto ilaa liasbaab caafimaadi wax ku saabsan mooyeene inaad nac awgeed iskaga tirtirto waa la necab yahay
weysadii leanna waa calaamaad ama waa aathaar cibaado weeye sidaasoo kale culamaau shaaficiya waxay yidhaahdaan iyo culamada qaarkeedba mar haddii la gaadho saacadda duhurkii markay tahay oo qoraxdu dhanka galabta ay aado ha cadayanin bay dhahaan afkaaga ha ka bedelin siduu uu yahay iyagoo shuruud ku xidho waxay yidhaahdaan markaasoo kale waa inuun afkaaga ku doorsoomin wax ka baxsan soonka oo hadduu soonka wax ka baxsan ku doorsoomo caday ilaa cadow mar walba sunno weeye marka haddii uu afku u doorsoomay soonka dartii ha ka bedelin oo ha ka cadayanin liannaka waxay u eg tahay wax nacaya cibaadadaas aathaarteeda nacaya ayaad u ekaanaysaa marka sidaasay culimmadu ay yidhaahdaan imaamu shaafici iyo ragga madhabkiisa ku waafaqayba saasay yidhahdaan soonku marka waxaa weeyaan lisaa'imi farxataan ruuxa sooman laba goor buu farxaa ama saddex goor buu farxaba haddii xadiidka qaybtiisaan dhahno idaa afdara markuu afuro yafraxu wuu farxayaa wa cinda liqaa'i illaahina yafraxu waa farxayaa labadaa goor buu guud ahaan farxayaa oo marna waa marka la afurayo marna waa marka uu ilaahay wejigiisa hor istaago maalinka qiyaamo weeyahan iyo xisaabta farxad maalinkaasaa soonka farxaddiisa iyo cibaado walba farxaddeeda laakiin de maadaama soonku gaajo iyo oon iyo dhibaatooyin aad u adkaysanayso farxaddeeda markaasaad helaysaa marka la afurayana laba goor bay noqon kartaayoo maalin walba markii la afurayo waa la farxaa oo waad og tahayoo daqiiqadaha ugu dambeeya ugu sii farx badan tahay kolba qoraxdu intay ka dhacayso ay soo dhowdahay waad sii farxaysaa markay dhacdana faraxdayba de wixii lagaa joojiyey horena markaasaad bilaabaysaa marna farxaddeedu waxaa weeyahan waa maalinka bishu dhammaato ee farxaddeeduna caam tahay labadaa goor waxaa naxa oo markaa la afurahaya qofka isagoo soomkii waajib ku yahay shuruudiisiina oofiyey soomi waaya dadku markay afurahayaan walbahaar iyo tiiraanyo ayaa markaa la gudboon oo uu qabsanaysaa waayo wuxuu og yahay wakhtigii yaraana waa dhammaaday waajibkii la gutayna ma gudinin xataa hadduu isqarinaya waa naxsan yahay ruuxaasi marka labaad markii maalintii la ciido ee bishii dhammaato oo adugu aad waajibi gudatay isnayn lagu leeya culays baa saaran markaa isaguna waa naxayaa oo wuu walbahaarayaa wuu tiiraanyoonhayaa oo xusni iyo dhibaata ku dhacaysa laga yaabo ugu dambaysta inay ku noqoto dibression iyo xanuun uuna ka baxaynin inuu ka qaado laga yaabo marka labadaa goor ayuu ruuxa saa'imkiihi yuu farxayaa marna waa markuu afurahayo maalin walbuu afurahayo iyo markay bishu dhammaato ay tahay marna waxaa weeye waa markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu la kulmo ayuu soonkii ilaahay u ballanqaaday ee ilaahay uu leeyahay wa ana ajzi bihi ayaa la leeyahy waxaas horay iyo dib iyo bidix iyo meel walba kaa jira waa camalkaagi waa soonkaagii markaa farxaddaas iyo wanaaggaa iyo rayrayntaas ayuu markaa helayaa xadiid kale wuxuu ahaa camal walbaba waa loo laalaabay ruuxa bani aadamka kullu camal ibni aadam waa riwaayo kale kullu camal ibni aadam yudaacafu lahu camal walba oo ibni aadam la yimaado waa loo laalaabayaa oo wanaagsan dee camal khayra laga hadlayaa camalka xun lama kordhinayo intuu ruuxu leeyin baa loo qorayaa ama uu ka towadkeenoo laga tirtirayaa ama camal wanaagsan oo intuu raaciyo ayuu laga baabi'inayaa wa atbici alxasanata asayi'a waa kii nabigu alay slam mar walbay xumaani kaa dhacdo wanaag ka dabagee iska maydh markaaba iska maydh haba u kaadin intay kugu ingegayso tamxuha way tirtiraysaa buuhi haddii aad adugu ka dabageyso way tirtiraysaa marka kullu camal ibnu aadam yudaacafu lahu alxasanatu wanaag la arko halkii wanaag mar keliya haddaad wanaag samayso cashru amhaalihaa 10 kooroo wanaaggaad samaysay in leeg ahayaa ugu yar inta lagaaga bilaabayo ilaa 700 dicfin
ilaa waxay gaadhaysaa 700 ayaa la gaadhsiin sida loo kala niyo fiican yahay loo kala qaabilaad fiican yahay cibaadada dadka oo wada cibaadada la wada imanayaan isku mid la ahayn isku si baan loo gudanaynin isku si baan loo jeclayn isku si baan loo dhadhansanaynin marka waa ka dhaxaysaa cibaadadii oo isku si baan u wada fororsanaynaa isku si baan u soo weysaysanaynaa isku si baynu safka u istaagaynaa laakiin haddana isku mid lama ahaanayo xagga ajriga oo ruux walba wuxuu leeyahay weel buu ruux walba wataa loo buuxinayo marka weelkaad wadato unbaa lagu buuxinayaa hadduu weelkaagu yar yahayna waa lagu buuxin hadduu weelkaad wadato uu wen yahayna waa lagu buuxinayaa laakiin wuxuu qaala allahu tacaala ilaahay markaa wuxuu yidhi ila asawma fa inahu lii wa ana ajzi bi buuri soomka mooyeen oo soomku weel aad wadato meehee isaga wax aadan garan karin oon la koobi karin oo aad iyo aad u weyn ayuu allah subxaanahu wa tacaala kuu ballan qaaday ballantana ilaahay marna kama baxo adu unbaa ballanta ka bixi maayo ilaahay subxaanahu wa tacaala marnaba ballanta ka bixi maayo ballamaha ilaahay uu galo wuu ka soo baxayaa laakiin bani aadamku ballantay galaan kama soo baxayaan haddaba muxuu ku matay ruuxani in sidaa loogu qiimeeyo oo heerkaa la gaadhsiiyo oo salaadii iyo acmaashii kaleo dhan uu soonku ka ficnaado maxaa uu ku mutay wuxuu inoo sheegay isla xadiidka wuxuu yidhi yadacu ruux wuxuu ka tegayaa shahwatahu shahwadiisii buu ka tegayaa wa dacaamahu wuu ka tegayaa min ajli dartay buu uga tegayaa riwaayo kale waxay wa sharaabu bay iyaduna xadiid kale uu leeyahay haddaba saddexda shay ay dadku u jecel yihiin waxaa weeyahan wax la cuno wax la cabo iyo shahwadoo la guto weeye saddexdaaba wuxuu uga tegayaa ilaahay dartii buu uga tegayaa min ajlii buu yidhi yani xadiidkaas waa xadiid aada u macaani weyn oo faham weyn u baahan culammadan islaamkuna way fahmeenoo gaar ahaan fuqahadu waa iyaga yidhahda soonka waxa jebinaya xadiidkaas ka soo qaataan xooggiisa laana wax alla wixii cayn ah oo jawfka gaadha oo manfad kaa gala soonka wuu jebin markay intaa maqleen yay waxay moodayaan hadduu ruuxu isaga ooan la imanin kulan rag iyo dumar isu tegay oo si kale shahwada u guto inayn soon ka jabaynin maya soonku wuu ka jabayaa laannu ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala yadacu wuxuu ka tegay shahwatahu wa dacaamahu iyo xadiidkan wa sharaabahu inta buu isku daray min ajli dartay buu oga tegahayaa marka shahwada in laga tago waxay ka mid tahay soonkii in lala yimaadana oo shahwadii la gutana soonkii oo la buriyo weeyaan iyo ciyaartaada holod ku noqotay ayay noqonaysaa sidaasuu markaa soonku fadligaa u leeyahay iyo weynankaas ilaahay uu weyneeyey subxaanahu wa tacaala waayo waxaad ka tagtay waxaad cabbi lahayd waxaad ka tagtay waxaad cuni lahayd waxaad ka tagtay shahwadaadii weliba waxaad ka tegaysaa waxyaabo kaloo iyagu xalaal ku ahaa indhahaagii yaad ilaalinaysaa dhagahaagii baad ilaalinaysaa socodkaagii baad kantarooleysaa soonkii marka ku jirto waxaa tahay qof is-ilaalinayo dhowrsoon ayaa tahay waxaa laga yaabaa ruuxan wuxuu maanta samayn lahaa inuuna samaynaynin markuu sooman yahay leanna soonkaasaa dabrahaya qaybta hore xadiidkaa sheegna waxay ahayd soonka ayaa junnaha ku ilaalinaya oo difaaca kugu jira ciidanku difaacaya oo ilaahay subxaana wa taala soo diray weeye markaad sooman tahay soonkaasaa sabab noqonaya inuu ku ilaaliyo oo ku difaaco ayuu soonku sabab noqonaya wuxuu isla abu hureyre warinayaa oo nabiga calayhi salatu salaam ka warinaya wuxuu yidhi idaa jaa ramadaan hadduu yimaado futixad waxaa la furfurayaa abwaabu ljannati jannada albaabyadeedoo dhan baa la furfurahayaa wa gulliqad abwaabu naari naarta albaabyadeedoo dhanna waa la xidhxidhayaa wa sufidat shayaadiintana garbaduub baa loo xidhayaa waa xadiid saxiixa isaguna ramadaan markuu soo galo riwaayadan xadiidka waxayna leedahay futixad abwaabu ljanna jannada albaabyadeeda oo dhan halka waxay nooga muuqatay jannadu inay hal albaab lahayn oo jannadu kala duwan tahay jannadu way kala sarraysaa fardows al aclaa baa ku jirta naciima ayaa ku jira magacyo kala duwan bay leedahay mid walbana magaci ay leedahay iyo
meesheedaas ku habboon marka meesha ay tahay markaa jannadaas oo albaabyadaas oo dhan baa la furayaa oo marka waxaa lagula jeedaa asbaabtii jannada aad ku geli lahayd yaa bannaanka kuu taagan haddaad meel u socoto oo meeshaa gawaadhidii aad u raaci lahayd kuu taagan tahay dee intaasoo gaadhi baa tegiya midkaa doonta raac weeye laakiin haddaad la raacin oo tidhahdo maba raacayo waan iska joogayaa hadhow gawaadhidu markay tagta aad u baahatay gaadhi xaggeed gaadhi ka helaysaa ama dayaarad ama tareen ama waxaad raaci lahayd sidaasoo kale waa asbaab camalku sidiisaba sabab weeye maalinkai qiyaamana mujasam buu noqon isagii baaba muuqaal noqonaya muuqaal qaar waad fuulaysaa oo waad raranaysaa qaarna waad cunaysaa waad cabbaysaa sida qaabka loogu raaxaystaad ugu raaxaysanaysaa marka camalku wuxuu sabab u yahay meesha wanaagsan ee fiican inuu ku dhaxal siiyo ayuu sabab u yahay soonku marka waa sababka ugu weyn leanna markaas waxaa la furayaa albaabyadii jannada oo dhan baa la furaya riwaayad kale albaabyadii waxaa la furayaa samadaa furanoo camalku marka waa maqbuul la imaw keliya waxaa lagu leeyahay camal samee waa la sugayaa inta laga qoraayo oo camalkaaga la kor yeelayo mar haddii camalkaaga la kor yeelo maqbuul noqdan alxamdulilah leanna acmaasha aan inta kale la imanna ma caddo inaan la aqbalayba camal baan la nimaadnaa inaan meeshii laga qaadin baad dhici karta camalka laakiin maalinka waxaa lagu tusahayaa in la aqbalay soonkii baa la aqbali acmaashii kalena waa la raacinayaa sidaasuu markaa noqonaya dee soonka aad la timaado ilaan soonku waa rukni oo arkaanta islaamka ka mid ah waxaase ka horeeya arkaan baa ka horeysa oo haddaadan la imanin una soonka waxba kuu taraynin dadka qaar baa waxaa weeyaan way soomayaan mana tukanayaan haddaadan tukanaynin soonkaamaba asaxayo kuumaba hirgelayo soonku waxa weeyaan waa jaranjaradii saddexaad ama ugu dambaysay weeye marka horta soo tuko tawxiidka haddaadan la imanin salaad ma kaa asaxaysaa markaa sidaasoo kale waxaa la doonayaa inaad acmaasha aad la wada timaado ee soonka keliya aadan la imanin leanna waxaa soomaalida ka mid ah oo aad ugu badan dad sooma bisha ramadaan salaadana aan waxba laguba lahaynba say moodayaan oon danba ka lahayn nabigeenuna wuxuu ina leeyahy calayhi salaatu wasalaam alcahdu aladii baynana wa baynakum alsalaat faman tarakahaa faqad kafara ow faqad ashraka riwaayada kalese ahayd markaa salaada waa ballanta adi iyo rabbi ini ka dhaxaysa haddii aad la iman weydo salaadaas aad la iman weydo ilaahay xarig dhexdiina yaalla ma jirto oo ballantii baad ka baxday ballanka baxaasna waa gaalnimo faqad ashraka iyo faqad kafara wuu gaaloobay oo cahdigii buu ka baxay ruuxaya ballantii buu ka baxay ama wuu ilaahay wax la wadaajiyeyoo haddee ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaad caabudi weydo maxaad u caabudi weyday amar shaydaan baad u caabudi weyday shaydaan baa wax ku amray oo ku yidhi ha tukanin ilaahayna wuxuu ku yidhi tuko tii shaydaankaad ogolaatay ilaahay waxaad garab gelisay shaydaan baad garab gelisay mushrik baa tahay markaasoo kale marka amarka ilaahay qaadee amarka shaydaanka ha qaadanin salaata tuko zakada markii lagu yeesho bixi soonku waa farad lagugu leeyahay ee soon oo u soon marka koobaad in lagugu leeyahay oo allah subxaanahu wa tacaala uuna kaa baryaynine dhegta lagu soo qaban doono maalinka qiyaama haddaad ka tagto xanudanuun marka haddii aad soonka ka tagto waxaa weeyaan waa lagaa dalbayaa waa lagaa doonayaa waa lagu ciqaab ilaahay baad ku mudan oo allah subxaanahu wa tacaala inoo sheegay leanna waa waajib laguu leeyahay ola imo marka koobaad horta soonka in laguu leeyahay oo haddaad ka tagta laguu ciqaabi haddaad ooga tagto tahaawunan iyo isfudaydsi haddaad ooga tagto diidis aad diidan tahay iyo nacaad nacaysana waad ku gaaloobaysaa waa inaadan nacbayn ooda diidanayn haddee duruuf inay kaa tagsiisana acdaarteeda dib baynu ka sheegi doonaa insha allah lagu afuri doono cashiradana soo socota bisha ramadaan gudaheeda baynu kaga hadli doonaa midda labaad waxaad u soomaysaa ajir aad ka heshi iyo dembi dhaaf aad kala kulanti ayaad u soomaysaa man saama ramadaan iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbih
ayuu nabigeenu ina leeyahay calayhi salaatu wasalaam ruuxii sooma bisha ramadaan u soomaya iimaanan rumayn uu rumaysan yahay soonka in lagu leeyahay iyo waxtisaaban ajri aad ka heshi gufira lahu maa taqadama min dembi wax alla wixii dembigiisii tegay lagaba dhaaf marka soon oo u soon ajrina aad ka hesho si dembi dhaaf aad u hesho wax alla wixii dembi kaa dhacay si lagugu dhaafo cashirkan waxaa ku jirta inaad soo toobad keento bisha ramadaan intaada midtayna gelinaad fiican haddii kalena mar kastaba waa toobad keeni kartaa soo toobad keen oo haddii aad dunuub hore kaa dhacday waa dunuub waaweyn dembiga weyn ka toobadkeen toobadkeenkana waan ku celinaynaa waa inaad markii hore dembigii aad la timid inaad qoomamayso kana soo fuqdo oo dembigaa ku dhex jirin qalbigana aad ka goosato mar dambe inaad ku noqonin saddexdaa shardi baa lagaa doonayaa haddii adiyo bani aadamni ka dhexaysana dee ruuxa walaalka ah kala heshii hadday xoolo tahay iyo hadday nabar gaadh tahay iyo hadday cirdi iyo sharaftiisa tahay toonaba intaas weeyaan marka dembi dhaafkii bannaanku ku yaalla haddaad toobad keentay acmaasha kale kaa qaqarsoonna waxaa lagaga maydhayaa soonkii ayaa wixii salaaddii kaa maydhi weydo soonkii baa lagaga maydhay insha allahu tacaala waxaa markaa la doonayaa inaad ilaaliso soonka aad u ilaaliso aad ajrigaas heshi ha laguu dembi dhaafo hana fudaydsaninoo amar ilaahay haddaad fudaydsato waxaad ogolaatay ama aad qaadatay amar shaydaan markaa mushrik baad noqonaysaa inta aad furaysee mu'miniinta ah waa inta shaydaan hore uga qayb noqday intaan bishii dhalanin buu ka qayb noqday markaasuu karkaarku weydaariyey oo meel cidla ah yuu madaxa u geliyey markaas sidaasaad arkaysaa xadiidka inoogu dambeeyo aynu qaadanayna waxaa weeye xadiid uu nabigeenu salawaatullaahi wasalaamu calayh uu leeyahay inna fi ljannati baaban yuqaalu lahu alrayaan jannada waxaa ku dhex jira albaabyada jannada waxaa ka mid ah albaab baa ka mid ah albaabkaasoo lagu qoray alrayaan magaciisa waxaa la alrayaan rayaan waxa weeyaan waa albaabka cokanaanta ruuxa markuu ooman yahay haddii uu cabo wuu oon baxayaa kaasoo kale weeye markaa cokanaan baa uu cokan yahay xoolaha loo isticmaalaa badanaa marka albaabkaas ayaa ku dhex jira jannada talow albaabkaas yaa gelahaya wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam yadkhulu minhu assaa'imuuna yowma alqiyaama waxaa geli oo keliya kuwa saa'imiintaha maalinka qiyaamo qoladaanba iska leh qolo kale oo ku soo hunguriyoobi ama xaggaa soo aadi ma jiro marka haddii aad salaadaadu ay fiican tahay oo acmaashaadu kaloo fiican yihiin oo soonto waxaad la dheertahay kuwii kula tukan jiray soonkii baad la dheertahay markaa albaabkaasaad gelaysaa dabcan soonku faradna wuu noqon karaa waa ramadaan oo waa lagugu leeyahay de mid sunnaana wuu noqon karaayood iskii ola timaado horena waxaan u sheegnay cashirkii horena aan filayaa soonka faradka ahee lagugu leeyahay waa midkan ramadaan ama kan oo kaa tegay oo dib ka qadaynayso isna waa farad ama mid aad nadar samaysa haddaad nadarto oo tidhaahdo hadday aad ilaahay subxaana wa tacala u nadarto haddii waxaas ilaahay oo aad ii samayso ama wuxuun aad ilaahay ka doonayso soonkaasaan soomayaa soonkaa farad buu kugu noqonayaa waa inaad la timaadaa markaa soonkaana farad buu noqonayaa kafaaro mid la yidhahdana waa jirtaayo dembi aad gashay awgeed soon lagugu farad yeelana wuu jiraa waxaaba ka mid ah hadduu ruuxu maalin ramadaan uu sooman yahay hadduu galmood la yimaado oo ninkii raggaa iyo gabadhii xaaska isu tagaan ruuxaa ragga ah waxaa lagu leeyahay haweenayda laguma leh markaasoo kale 60 maalmood oo isla xidhiidha soonkeed baa lagu yeelanayaa markaa soonkaana farad weeye aan maalin u dhexaynin ayaa lagu yeelanayaa markaa soonka kale ee soo hadhay waa soon sunno ah afarta waxaan ahayn wuxuu noqonayaa soonkii sunne
munaasabaad mucayana loola yimaadaa ama carafa ha noqoto ama cashuura ama taasuucaa ama maalmaha kale sida khamiista iyo isniinta ayaamulbiidka munaasabaadkaas soonkaad ula imanayso oo kale oo dhan iyo sidaad doonto haddaad ula imanaysaba soonkaas sunnada ah isaga naftiisu wuxuu ku dhexalsiinayaa inaad ka mid noqoto min asxaabi rayaan albaabkaa dadkii galaya inaad ka mid noqoto ayuu ku dhexalsiinayaa marka isagoo sii wada nabigu wuxuu yihi laa yadkhulu macahum gayruhum ruux kaloo la geli ama laa yadkhulu macahum axadun gayruhum ruux kale oo la geli ma jiro buu yidhi keligood ayaa gelaya waa rayaan baabka rayaanka la yihahdo keligeed baa lo gelaya marka gelitaanka haddaad gasho adoon lagu ogeyn iyo haddaad meel sare lagaaga dhawaaqo waa kala sharaf badan yihiin ee ilaahay subxaana wa tacaala khalaa'iqda dhexdooda maalinkaas nebi aadam iyo ilmaha ugu dambayn doona ay isla meel wada taagan yihiin yaa lagaaga dhawaaqaya oo wayna asaa'imuun ayna asaa'imuun baa la leeyahay war kuwii soomi jiray awaya magacaabaa la siiyo saa'imiin baa la yidhi kuwii soomanaaba waa wax dad sooman baad moodaa saacaddaasba marka awayaa la leeyahay marka gaar bay usoo baxayaan ma ku dhex dhuuman kartaa oo ma soo hoosgeli kartaa oo ma laga yaaba ruuxa lagaa ilduufo oo aad marka qaarkood meel aan meesha lagugu talagelay aada gelin waxaase xaaladda maalinka way ka daran tahay way ka duwan tahay ruux walba wuxuu yahay calaamad baa ku dhegan te adduunkiibaba yaan meel lagu kala dhuman kara jirinba bani aadamka walilahi almathalu laclaa eebood haddaad soo gashay eeboodya waaweynah xageed mari kartaa meel kale ood gashood magaalada ka gasho maad garanaysaa may eeboodkaasaad soo gelaysaa laabudda jagboonti waa soo maraysaa adoon meel kale ku leexanin halkaasaad maraysaa haddaad dabacda inaad meelaha ororado waa un lagu soo qaban waxaa tahayna waa la fahmayaa markiiba waa lagu soo qabanayaa marka bani aadamkii cilmigiisu maxduudka ahaabaa yaa saas ahe maxaad u malaynaysaa maalinkaas malaa'igta ilaahay walilaahi junuudu samaawaati waalardi junuuddaas samaawaadka iyo ardada ee aynan wax koobi kara oo bani aadam una jirin ayaa meesha joogta kaa awood badan boqorkii iyo madaxweynihii iyo wixii o dhanba maanta maalinka xaqiir bay noqonayaan halkaas ayaa soo gelaya marka nin walba meeshii uu mutay ayaa la marinayaa maalinka waxaa barmoosahaya oo imtixaanka si fiican u baasahaya kuwii saa'imuunta ayaa meeshaa ku baasaya baabkaa rayaaninta ku baasaya wuxuu yidhi fayadkhuluuna minhu faidaa dakhala hadduu galo aakhirun kii ugu dambeeyey ugliqa waa la xidhiba albaabka falam yadkhul ma gelaayo minhu xaggiisa axadun ruux damba ma gelayo albaabka markay galaan dadka loo yaqaano saa'imiinta markaa albaabka waa la soo xidhay wax dambe oo gelahaya ma jirto saa'imiinta keliya unbaa gelaysa fadligaasuu soonku leeyahay iyo wanaaggaasuu leeyahay muxaadaro keliyana kuma dhammayn karo insha allahu tacaala waxaa inoo soo socda muxaadara dambe oon axkaamta soonka iyo kaga hadli doona waxaa wanaagsan soonka markaa in la iska ilaaliyo wax alla wixii laqwi ah ee xumaan ah oo la badsado daacada ilaahay subxaana wa tacaala adkaartii ruuxii qur-aanka yaqaana qur-aanka akhrisiisa leanna nabigeena calayhi salaatu salaam jibriil baa u iman jiray bisha ramadaan oo 2 goor buu qur-aanka u akhri jiray isla akhri jireen baynamaa markii hore mar uu isla akhri jireen ama mar uu akhri jiray marka qur-aanka haddaad bishiiba mar dhammayn jirtay bisha ramadaan 2 goor dhammee haddaad bishiiba 2 goor dhammayn jirtay bisha ramadaan 4 goor dhammee haddii aad bishiisa dhammayn jirtay 2 bilood mar dhammayn jirtay bisha ramadaan mar dhammee marka waxaad isku dayaysaa intii hore camalkaagu ahay 2 goor inaad ku dartaa oo dhabel ka dhigto ayaa loo baahan yahay intaa insha allahu ka gaarina muxaadaro kale aqulu qawlii hada wa aakhiru dacwaana daawadayaasha qiimaha qaayalo qodobkeena labaad ee maanta barnaamijka waxaan kusoo qaadanaynaa cabdiraxmaan sheekh macdi oo bartiisa facebooka soo dhigay qoraal lagu baaqayo bulshada soomaalida ogaadeeniya in wakhtigan xasaasiga ee kala guurka u maraya geeska africa oo dhan gaar ahaan xukuumaddii abisiiniya ay kala dhaqaaqa ku jirto inay fokiska saaraan sidii iyako wada jira oo mid ah ay maaragtay dantooda u gaari lahayeen isagoo uga digay in wakhtigan iyadaa beel ama gobol ama koox gooniya ayna awoodi karin
in ay maaragtay guusha shacabku uu rabo inay wada xaqiijiyaan sidaa darteedna ay muhiim tahay in lagu wada baraarugsanaado meelna looga soo wada jeesto sidii maaragtay ummadda iyagoo gacmaha haysta ay dhammaan xuquuqdoodii iyo xorriyaddoodii ay u hanan lahaayeen marxaladan oo etoobiya marayso meel kala dhaqaaqa dawadeesha qiimaha qayaalo qodobkeenna saddexaad ee maanta waxaan kusoo qaadanaynaa Subhadniga oo ah mas-uul sare oo ka tirsan EPRDF-ta oo dhammaan xilalkii uu ku hayay ururka EPRDF iska casilay Subhadniga ayaa lagu sheegaa inuu ka mid ahaa aasaasiyaashii jabhadii TPLF isagoo qayb weyn ka soo qaatay muddadii ay jirtay jabhadda iyada halgankii u gashay xornimada dadka Tigreega ilaa xukuumaddii Mala Zanaawi ilaa maalinka maanta ay joogno arrimahan ayaa wararka hordhaca ee ka soo baxay ay sheegayaan inuu yimid inay kooxda EPRDF-tu kala jabtay oo kala qaybsantay Subhadnigana wuxuu ahaa dadka aad iyo aad u dhaleecaynaya Abiy Ahmed isagoo u arka maaragtay inuu nin khalad yahay inuu meesha yimaado laakiin Tigreegu maadaama ay ku kala qaybsameen isaguna yahay nin 80 jir ah kuna fashilmay ayaa waxay u badan tahay inuu maaragtay xilkaas sidaa u baneeyay dad badan ayaa waxay leeyihiin ninkan isagoon xil hayninba xitaa banaanka uu ka shaqayn karaa sababtoo dadka Tigreeguna waxay ugu yeedhaan aabbo laakiin xeeldheerayaal arrimaha Etoobiya aad u socda iyagu waxay leeyihiin Tigreegu mar walba gacantooda way ka baxday awooddii dalka si tartiib ayaa maalin walbana looga saarayaa inta dhiman iyadoo la aaminsan yahay in dowladda Ingiriiska iyo Maraykankuba ay prime ministerkan cusub ee Ahmed Abiy ay qayb ka yihiin ayna u saamaxayaan inuu waddanka taladiisa gacanta ku dhigo kadib markii dowladda Ingiriiska iyo Maraykankuba ay maaragtay ku jahawareereen siyaasadihii guracnaa ee xasuuqa iyo bahdilka ku dhisnayd ee qowmiyadda Oromadu muddada badan ku soo haysay shucuubta kala duwan ee Ethiopia iyagoona xalka u arka in qaab ka yara wanaagsan oo ka dimuqraadisan awooduna ayna gacanta kaga baxaynin in maaragtay waddada iyada la maro sidaa darteed dad badan ayaa waxay saadalanayeen in Ethiopia isbeddel ka dhici doono laakiin isbeddelkaas siduu u noqon doonaa way su-aasha hadda la sugayo dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin Tigreegu inay garan lahayiin waxay sameeyaan inay inqilaabaan Abiy Ahmedna awooddii iyo waxay ka baqayaan dowladdii reer galbeedka inu saamaxayn sida Ingiriiska iyo Maraykanka way ka baqayaan inay farageliyaan raallina kuma aha inay indhahooda iyagoo arkaya maalinba ay awoodda dalka Ethiopia gacantooda ayraayar uga baxdo wararkan iyo wixii kasoo kordha dib ayaan kala socon doonaa بسم الله الرحمن الرحيم داوداش قيمة قايل قلب كأنه أفراد مانتا وحنا سوق قادنا إن شعب الصومالي دوادين أو كعضون دبت يبدأ أو يسيستك وضع لما دجانا ذاك الدوان شعب الصومالي دوادين أو صوم راح السوق يصير ترترا بهدل جيلو قادين يمارك وحول بوقف بناء ما يقولك الكري kuwaasoo waayey maaragtay xuquuqdii ay lahaayeen shucuubta la midka ah ayaa gadood ka sameeyey oo xamili waayey kadib markay noqdeen sidii mukulaal lagu cayriyey derbi oo kaleete yacni shacabkan ayaa oo maalin walba ehelkood iyo qaraabadood iyo xigtadoodii jirdil iyo xasuuq iyo bahdil iyo kufsi iyo dhaqan xumo ka bixi waayey ayaa waxaa dhammaaday dulqaadkoodii waxaanad moodaa hadda inay isqabsadeen awal jabhadda ONLF oo ay jabhadda keliya oo hormuudka u ahayd muddadii dheerayd halgankii xornimo doonka ayaa waxaad moodaa inay ku soo biireen kuwii aaminsanaa in Ethiopia wax lala qaybsan karo taasoo runtii ay soo xaqiiqsadeen inay jabhadu ka saxsanayd oo in Ethiopia wax nabada iyo wax wada hadal iyo wax wanaaga iyo wax sharafa midna ayna u ogoleen qofka Soomaaliga taasoo ay caddayn iyo markhaati ka tahay dowladda cusub ee Abiy Ahmed markii la dooranayay goobtii lagu dooranayay in dadkii Soomaaliyeed ee Ethiopian baan nahayda ku hayay ee meel walba Ethiopianada la ordayay aan hal qof oo matalayo u dhex fadhiin meesha lagu qaybsanayo awoodda Ethiopian ay u aragtay dadka Soomaalida dad maaragtay aan waxba agteeda ka ahayn laakiin ay rabto khayraadka iyo dhulka dadka Soomaaliyeed arrintan kacdoonka oo maalin walba sii ballaaranaysa kuna sii fiidbaysa qaybo kala duwan oo mujtamaca ayaa waxaan la garan karin la saadaalin karin natiijada runta ee soo bixi doonta maalmaha dhow iyadoo maaragtay ay jabhadda ONLF oo horseedka u ah
xornimo doonka ummaddu ay isku dayeyso sidii maaragtay ay shacabka u jihayn lahayd inay hantaan xornimadooda iyo sharaftoodii shacabkuna iyagoo mid ah ay ka gudbaan maaragtay marxaladan maanta la marayo barnaamijyadana soo socda ayaa insha allah waxaan igu soo gudbin doonaa kacdoonka iyo wixii kasoo kordha tan iyo inta aan isaga kulmi doono barnaamijka la mid ah waa ilays tv oo idin leh intaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu